الله والصلاة والسلام على رسول الله بعده مدحوينه حسن الشيخ مدحوينه هور دلك أهنا قدوميها UPD حزب UPD قدوميها هجاميها عنده حزب إليس قدوميها حزب هميلو قدوميها حزب كولان هي iyo xokeeyaha xisbiga Horsocod dhammaan xildhibaanada iyo maxay ahaato akhyaarta kala duwan iskama iloobin gudoomiyaha gudoomiye Sheekh Aadan oo ah asaguna gudoomiyaha golaha dhexe ee himilo qaran dhalinyarada ka soo qayb gashay baada saxaafadda waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaan kadib marka hore waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo isu imaadkan runtii qiimiga leh xilliga kooban aad isku wargaarsiiseen oo aan arkayno taageero maxaa taageerisiin waxa taageerisiin waxa hadda sheegaysiin xorriyadda muwaadinku waa xaq dastuuri ah waxa adduunka ugu fiican oo bani aadam oo ka shaqeeyo waxa waa inuu ama xorriyadiis ama xorriyad qof kale oo la handadayo oo xaqiijiyo inaan la handadin umadaha hore u marana taas ay hore ugu mareen أنا waxaan aaminsanahay dawladnimada halkaas ka bilaawata asaas ahaan dadku inay xorriyadooda doontaan ku dhiganaadaan qof kasta oo la dulmaayeen ay kor tagaan marka qof kasta oo isku daya inuu awoodda dawladnimo u adeegsado inuu ku cadaadiyo muwaadinka waa in laga hortago waa mabda asaasi ah oo qof walba Soomaaliya xuseeyo annaga hadda ay soo ma karnaa waa hadda karnaa laakiin dadka aan hadlayna annaga nafteena kale uma hadlayna waxaan hadlaynaa qof kasta oo Soomaali ah hadlayna waxa la idin sheegay waa maqlayseen annaga safarkeenu wuxuu ku aadanay gurmad lacagihii la aruuriyay in la geeyo Hiiraan gaar ahaan beledweyne dadka laga qayb qaata xanuunka wixii la helay loo geeyo guddigii la gaarsiiyay meesha si ay shaqadii u qabtaan dadka laga qayb qaata xanuunka isla markaasna la dul istaago baahidooda intaas aan u socon wax kale ma jiro siyaasad ma jiro waxa ma jiro barka siyaasad socoto hadda beledweyne ka socota ma jirto ma intaas aan u socon qofkii marka maskaxdiisa ay ku jirtay kismaayo markii la aadaayay siyaasadda loo aadaayay tanna siyaasadda loogu socday kismaayo siyaasadda loo aada sax ahayd laakiin beledweyne siyaasadda loo aado taas macnaheedu waxa waaye dawladdeenu ma fahamsana wixii loo doortay ما فهم سنة شرعي لو دورت ديار أمها حقوق مواطن كصومالية لو أمن أين إيرانس قال لي فهمان مولانا هدي أنت استاكتو دتك أسجرجار في أوبهاين الجرسيلة هاين وحن إهلن ألف شكر وما سنتهين شغل النقل رواقبتين بس كجوجلها لكن ماشي وإحنا ما جينا إنه باهي هذا كم فيلم أنت بحنو بيقول لك عشان نصون لغنينا صور عسكر سوقادنا قفك هذا أنا ما هذه كرم أنا قصيدة هذا بالسياسة الصراحة لانك أغاني بين كم أغاني وحصح معه مدحونا سعود كوور بحيي وحالة تجي هل ساعة وصباح نمو وحالة قبح يشان ساعة يجوجو انتاس مروا البقي ساعة سبحان الله ألفها مركو وقدر هذا وحي هذا ورجرانك بياقل عناية ما بلو قدري كربا أنا ورجرانك أنا قدرك أنا دقنا وأنا قناة بيكمل جيران وحنا لقاب وأنا لقيه ماشي استغفر الله أنا لما جينا دحنا ولا سؤالي مركان بلدونا كرتقنا وجرانك عارقني راسوك الجيري حمر مركان كسو دونا يا بايلوتكي وحولد ضوضي مدحين مش هيك مدحين حس الشق حول مدحين جرانك وقويين هاي دنا قويين لو مدقي كره niyo waxaan ay tusayso wixii airportka lagu tusay waxba kama jiraan waa idin celinana oo idin ma wada meesha ninkii maskaxdiisa waa isbedeshay xiriirow samay isla markii diyaarad military oo diyaaradda anaga aan wadana markii ugu yartaa laba marka culus oo dalka Ethiopia laga leeyahay ka dhigto bayloodku waa maqlaay waa kala jiray waa ninkii marka meeshii tagnay airportka sida la idin sheegay airport laga gabeys karo yani laga booraysan karo qofkan bihaysan beenta intaas la eg inay madaxda dawladda ku mashquush oo dadku ku mashquush oo annaga intaas nagu rafaadis runtii waxay nala noqoto waxaan fiicnay marka dareenkayga marka ay la wadaago ani wax fiican aan arkaa
sababtuna waxaa dadka Soomaalida waa dad baariyaala waa dad fudud ay fududahay inay ku aaminaan dawladdu mar walba tilaab kasta ay qaado waxa imaanaya wax looga aamin baxo annaga laftigeena dad waaweynana hadda macnaha hadda maanta waxaan soo xaqiijinay garoonka wixii laga sheegay inay been ahaayeen dadka reer beledweyne waxay ogyihiin garoonkooda inaan biyo fadhin adinka hadda warbixina qaadanaysiin dawladdu inaysan awood u lahayn annaga mucaarad waana laakiin mucaarad wax dhisayaan maxaan wax ku dhisaynaa sharci qoryamaan ugu aragtay aniga xas shaqoon wadanaa maya weligeen miya aan kala hadalna dawladda hal dumiye maya annaga waxaan leenahay sharciga hala ilaaliyo dawladnimadu waa sharciga hala ilaaliyo waxa ugu horeeyana xurriyatul muwaadin dawlad kasta oo ku soo shaqeysa dictatoriye masiirkoodu waxay ahayd baaba iyo burbur taariikh xunayna ka tagtay teeni shalay ahaadaan ugu horeysay 30 sano dagaal sukeeyaha inooga tagtay oo wali xal la'na macquul mata hadda in haddana dib aan u bilaawno sheekada ku celin mararka qaar waxa islaada Soomaalidu nin kastaba wuxuu rabaa inuu Maxamed Siyaad Barre noqdo war aqli ma aha Maxamed Siyaad Barre hadda maanta hadii la soo celiyo wuxuu ku khasbanyahay soo u fikir jiray ka duwan inuu u fikiro oo ku khasbanyahay marka aqliyadaas waxa loo baahan in la iska dhigo dadkaanu waa dad sharci waa dad dawladnimo waa dad raba nidaam iyo kala dambeyn iyo is-ixtiraam taas loo baahan in lagu shaqeeyo dawladuna waa cid ugu horeyso oo laga rabo inay sharciga ixtiraamto marka runtii arinta waxay nagu bixinaysaa inaan u istaagno u foojignaano tilaab kasta oo la qaadayo dalkan dawladnimadiisa waxaa loo soo maray duruuf adag dhibaatooyin fara badan dad badan oo dhintay kuwa badan oo dhaawacmay maanta ragaa waxay rabaan ka sameeyaan xataa natiijo kama fikiraan garoonka diyaaradda dadka hadii laga celiyo maxaa dhici kara xataa isma weydiinayaan dalkan dadku qoryihi waa haystaan wali xanuunku waa hayaan cadaalad darada waa dul saaran tahay albaabadu waa xiran yihiin jid la mari kara ma jiro haddaa qofka ceejiso maxaa ka imaanayso inaad isweydiisid oo aqli leedahay marka runtii waxaa muuqanaysa yani qofka caadiga ah oo normalka aqliga inuu ka hooseeyo aqliga dawladda I'm sorry to say that qofka caadiga ah oo normalka Soomaaliga aqligu waa ka hooseeya dawladdan waxa laga rabaa inay dadka dhan ka horeyso oo institutionadeedu u adeegsato waxa ugu fiican ay sameey karto arrinta madaxweynuhu ka dhawaajiyay oo ah in la toojar gareeyo dadka ganacsatada مثلا shirkadaha diyaaradaha iyo civil aviation waxa rabaa inay bareeraan oo ay dhahaan go'aankaas annaga soo saarnay siyaasi waay laakiin ina adeegsaday wiil masaakiin oo soo shaqo tagay oo reerkooda u soo shaqo tagay waa nasiib darro haddana madaxdii qaar kamid ay handadaan oo dhahan tilaabo laga qaado oo maxaa tilaabo ka qaadaysaa wada dambiile qofkan waa shaqaystaa waxa siisa shati oo ku duulo shuruudiyo soo buuxiyay waa ganacsana waqtigiisa yaa cuntay madax wareera ku riday garoonka marka uu tagana biyo kuma jiraan waa marka yaa dambiila ani waxaan qabaa shirkadu inay dacwatan qabaan مش دولة إنا الدعوة الشركة إنا الدعوة تنقبا أو الدعوة كفرت السيفل أفيشن كي دولة سيدا صح لا تاسوا مضاشان waxay u taagantahay xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan hadli karin ee la dulminayo maalin kasta dulumkaas iyo mid lamid ah xafiisyada dawladda ka dhacaan maalin kasta Soomaaliyeed maqla cabashadiina soo gaarsiiya madasha wallahi thumma wallahi diyaarana waa qaadana meesha ugu sareysan gaarsiinayna magaaladan Mooriyaana hayso jirta Sooma waa la dagaalamo waa la baxshay musaabeente Ethiopiana soo galay maxaa lagu sameeyay waa la bixiyay shabaab qabsaday ma ka xoog badan yihiin dadkan kama xoog badan wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi hadaysan joojin waa bixinayna oo qofka aan sharci rabin maxuu nagu la feeri bal dhageysta qofka aan sharci rabin maxuu nagu la joogaa maxuu nagu xukumaa Mooriyaanimo ma ogol waa diina Mooriyaanimo annaga sharci in la isku xukumaan rabnaa annaga ugu horeeyna nagu la xukumo laakiin dhulumkan joogtada oo socda ma aqbaleen mana la aqbali karo nafteena uma qaadeen qof Soomaaliyeena uma qaadeen ogaada
shala markii aan ka hortageynana waxaan cid nagu soo hanuunisay cid nagu soo garbashay gashmir garaadkeena dafal alxamdu ilaahi fadligiisa maanta intii waa ka garaad badannahay waa ka aqoon badannahay saaxiibo badan oo aanan aqoonin aan barannay maanta dulmi ma ogolin mana aqbalayn dalkan sharciga uu leeyahay sharcigaasaan rabnaa in lagu kala dambeeyo sharciga ciddi ka baxda horteedaan taagana ha ku tala gasho oo maxay shaab uga duwan yihiin waxay uga duwan yihiin lama arko waxay uga duwan yihiin lama arko kan waa ku soo jargareeyey wuxuu ku yidhi diinta aniga sidaan raba u aamin kanna wuxuu ku yidhi sida aan rabay waa ku soo jargareeyey maxay u kala duwan yihiin marka maxay u kala duwan yihiin lama arko labaduna waa qarandiid waana qarandumis waa Soomaali diid waa Soomaali diid waa midnimo diid marka waxaan leenahay kafa war ku joogsada meeshiina ku joogsada Soomaalidu maanta maalintii la baacsan jira ma aha dawladnimada waa la idinkaga faham badan yahay waa la idinkaga xoogaalsan yahay maantana dadku waa soo jeedaan marka waxaan leenahay waxaa taagantiin maanta caqli daradiina gargaar bani aadanimo lama geey karo dad dhibaataysan oo Soomaaliya lama gaarsiin karo baladweyne lama geey karo yaa idinka aqbalay idinka aqbalaysa ma jirto marka waxaan rabaa walaalahay inaan isku khaldamin inta ay sharciga dhowrayaan sharciga aan dhowrayna haddii sharciga diidaan annagana waa diidna ayaga waxaan rabaa nuqdo kale in aan uga gudbo waxaa la yidhaahdaa xurriyadda iyo xuquuqda waa la soo qaataa lasma siiyo aniga saraxatan waa enjoy gareynaa camalkan sababtuna waxa waaye xuquuq qof qaadanayo oo laga soo dhigaayo oo tuug ah dee tuug inaa ceyrsato wax ka fiican miyaa jira warqabta tuugada ka daba taga wixii adduunka ugu fiicnaa ugu qaalisnaay rabaa inay qaataan waa xurriyadaada wax ka weyn miyaa jira maxaa uga tanaasuleysaa marka makaa xoog badan yihiin nimanku aan iska dhicinna marka intaasaa noo ballan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu